السلام عليكم. kusoo dhawaada koorsadeenii MATLAB training certificate koorsada MATLAB oo ah software aad iyo aad muhiim u ah researchada iyo cilmi baarista engineeringka sayniska medicalka dhammaan loo isticmaalo. casharka afraad ama lecture 4 waxaan ku baran doonaa insha allah hadduu la yiraahdo qaabka xisaabaadka qofka mathematicska barta ama batch ama master oo u isticmaali karaa ama ardayga engineeringka inuu MATLAB xisaabaadka iyo waxyaabahaas uu xalliyo. Marka waxaan baranaynaa insha allah hadduu la yiraahdo casharkan sida loo xalliyo linear equation adigoo isticmaalaya MATLAB. waxaan filayaa linear equation inaad kusoo dhigateen jaamacadaha ama ku dhigataan linear equation. marka inuu ka hadli maayo waa maxay linear equation, sababta waxaan filayaa already inaad wax badan ka fahamsan tahay linear equationka iyo qaabka loo xalliyo. linear equationka markaan ka hadlayno iskuulka dugsiga iskuulkan oo lagu soo qaataa jaamacadaha oo lagu soo qaataa waa casharada ama subtopicska ugu muhiimsan aljabrada. waxaan rabnaa insha allah inaan casharkan ku dhigano sida linear equation loogu xalliyo MATLAB. waxaan rabaa inaan tusaalahan soo qaato. tusaalahan soo qaadanayo waa kana. waxaa haysanaa 3 equation. equationka koowaad waa maxay? waa 3x plus 2y minus z is equal to 1. equationka labaadna waa maxay? waa 2x minus 2y plus 4z is equal to minus 2. equationka saddexaad waa maxay? waa minus x plus half of y minus z is equal to 0. marka equationkana haysanaa. equationkan markaad xalinayso wax laga yaabaa in waqti badan uu kaa qaadanayo, laakiin MATLABka wax badan kaa qaadan maayo. waa very easy, waa very simple, waana samayn doonaa insha allah hadduu la yiraahdo inagoo isticmaalayna command window. marka equationkan ama linear equationku wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood. qaybtan equal dhanka bidix ka xigta ama left side ka xigta waxaa la yiraahdaa a. qaybtan equal right side ka xigtana waxaa la yiraahdaa b. marka value of a muxuu noqonayaa? wuxuu noqonayaa 3 2 minus 1. value of b muxuu noqonayaa? value of a qaybtiisa labaad muxuu noqonayaa ama rowga labaad 2 minus 2 plus 4. rowga saddexaad muxuu noqonayaa? minus 1 plus 0.5. 1 over 2 waa maxay? waa 0.5 minus 1. intaa marka waa row, waa saddexda row waa section a, waa qaybta a. qaybta b na waa maxay? waa 1 minus 2 iyo 0. marka hadda ila arka solutionka. value of a waa maxay? linear equationka markaan ka hadlayno waxaan kala qaadaynaa a iyo b. a marka waa maxay? waa wixii equal dhankan bidix ka xiga, sidii halkan ka muuqata 3 plus 2 minus 1. 2 minus 2 plus 4 minus 1 0.5 minus 1. intan waa maxay? waa a. b maxaa inoo ah marka? 1 minus 2 iyo 0. marka si aan u soo saarno valuega maxaana looga baahan inaan soo saarno qiimaha x y iyo z. maxaan samaynaynaa? qiimaha x iyo y iyo z maxay la mid tahay? waxay la mid tahay inverse opposite-ka a oo lagu dhufta b. okay, ama inverse of a times b. okay. marka example-kan 3x plus 2y minus z is equal to 1. 2x minus 2y plus 4z is equal to minus 2 minus x half y minus z is equal to 0. markaanu xalino inagoo samaynayna inverse of a times b
waxaan soo saaraynaa value of x inuu la mid yahay 1, value of y inuu la mid yahay -2, value of z inuu la mid yahay -2. marka MATLAB-ka waxaan samaynaynaa equation-kan aan ku dhisaynaa, kadibna waa inuuna siiyaa resultigan 1 -2 -2. haddii aan tusaalahan halkan aan ka soo qaatay, waa kana su-aashu waa tana, jawaabtana waxaa soo baxaysa 1 -2 -2. marka hadda waxaa aadaynaa waa maxay? MATLAB-ka aadaynaa. Okay. MATLAB-ka marka waxaan isticmaalayaa command window-ga, sababtoo command window koodhka waxyaabaha xisaabaadka waxyaabaha simple-ka oo dhan baa ku qabsanaysa, laakiin koodh weyn markaad dhisayso waa inaad editor aad furataa. sidan hore usoo sheegay, script waa inaad furataa ama editor. okay, editor waa inaad furataa. marka innaga hadda editor isticmaali mayno, just waxaan ugu filan command window-ga. workspace-keenna waa 0, wax variable ah oo inoogu ku jira haba yaraatee ma jiro. marka dib haddaan ugu laabto linear equation-keenna, waxaan diyaarinayaa a1 waa maxay? waa 3 2 -1. waxaan leeyahay value of a ama variable-ka a waxaad igu keydisaa 3 2 -1. intan waa maxay? saddexdan waa maxay? waa row-ga koowaad. 3 2 -1. kuwan waa maxay? waa row-ga koowaad ama row 1. hadda marka waxaan samaynayaa row 2. row 2 marka waa maxay? waa 2 -2 + 4. waa maxay? waa 2 -2 + 4. okay, semicolon baa siinaya. semicolonku muxuu ii abuurayaa? row-ga saddexaad buu isii abuurayaa. row-ga saddexaad muxuu ii noqonayaa? -1 0.5 -1 -1 0.5 -1. intaa markaa iraahdo, saddexdan number waa row 1, row 2, row 3. waxaan leeyahay equal. hadda marka haddaa iraahdo value of a muxuu iila mid yahay? value of a wuxuu kuula mid yahay 3 2 -1 2 -2 4 -1 0.5 -1. eberkan gadaal ka raacaya doesn't matter. waxna ma abuurayo, waxna ma samaynayo. is okay. okay, marka maxaa ii dhiman? value of b. b marka muxuu ila mid yahay? b wuxuu ila mid yahay 1 -2 0. waxaan dhahayaa 1 -2 0. okay, sababta aan semicolon u iraahdo waa maxay? sababta aan semicolon u siirayo waa maxay? waxaa rabaa b wuxuu ka kooban yahay 1 column iyo 3 row. marka row-ga koowaad, row-ga labaad iyo row-ga saddexaad. row-ga koowaad, row-ga labaad iyo row-ga saddexaad. marka value of b muxuu ila mid yahay? yes, 1 -2 iyo 0. okay, hadda marka maxaa ii diyaarsan? a iyo b. si aan u soo saaro solutionka ama xalka x iyo y iyo z, maxaan dhahayaa inverse of a times b. okay, inverse waxa usoo gaabinaynaa a. okay, inverse of a times b. wuxuu noo soo saarayaa 1 -2 -2. soo ma jeedid? marka value of x, value of y
value of z. Value of x waa maxay? Waa 1. Value of y waa maxay? Waa -2. Value of z waa maxay? Waa -2. intaa markaa waa qaabka linear equationka loogu xaliyo MATLAB-ka. Marka tusaalayaal badan baad samayn kartaan oo ku practice garayn kartaan. Waxaan idinka rajaynayaa inaad is-challenge garaysaan oo aad equationna kala samaysaan oo isku daydaan inaad solution ka soo saartaan. waxaan soo saari karnaa waxa jirto wax la yiraahdo determinant. Determinant of variable-ka a haddaan rabno inaan soo saarno determinant waxaan leenahay d e t of a. determinantiga variable-ka a haddaan rabno inaan soo saarno isaga automatically noo siinayo waa -3. waxaan xasuustaa iskuulka markaan dhiganayay value of determinant of a soo saar markii lagu yiraahdo inaad equationka waxa weeye waqti badan kugu qaadanayso inaad samaysid step by step by step. MATLAB-ku isla markii wuxuu kuu sameynayaa automatically wuxuu siinayaa jawaabtii. marka waxaa jira waxa la yiraahdo HL value jaamacadaha laga yaabo inaad ku dhigataan. HL value-ga of a haddaan rabno inaan ogaano inoo soo saarayaa 3 - 3 0. marka so many things baa jira. haddii aad rabtaan inaad functionska kala duwan ee linear equationka aad rabtaan inaad barataan halkan ku qor linear functions MATLAB. qaabka plottingka u samayn lahayd linear equationka waxaas oo dhan macluumaadkiisa halkan aad ka helaysaan. Okay. marka qaabka noocaasa linear equationska functionska isticmaali karto inverse markaad rabto inaad isticmaalayso functionkiisa waxaa qoraysaa inv sidan hadda ay samaynay inverse inv. marka functionskan oo dhan waan samayn karnaa. okay. marka rajaynaya insha allah inaad hn valueska waana hadda aan sheegay eig marka insha allah rajaynaya inaad ka faa'iidaysataan isula daydaan. intaasaan kusoo koobayaa insha allah.